waxaa maanta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay lagu qabtay shirka wasiirada arrimaha deegaanka ee dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Shirkan ayaa looga hadlayay arrimo ay ka mid ahaayeen joojinta ama yareynta dhuxusha iyo abuuridda noolaha kale. Waxaana shirkan furay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, iyadoo ay ka soo qayb galeen dhammaan wasiirada arrimaha deegaanka dowlad goboleedyada dalka, iyadoo uu qayb ka ahaa wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Ugu horeyn waxaa madasha shirka ka hadlay qaar ka mid ah wasiiradii ka socday dowlad goboleedyada dalka. Arrimaha environmentiga iyo wasaaradda xanaanada xoolaha barnaamijkaas maanta ka furmi doono magaalada Baydhabo oo looga hadli doono kulley ajandihiisa iyo wixiisa waxaa furi doono shirkii ministerial levelka ahaa ee lagaga hadlayay yareynta dhuxusha iyo joojinta iyo abuuridda nolol kale. arrin aad iyo aad ahmiyad u leh wax badanna way ka qabsoomeen run ahaanta ay ugu horeyso dhoofintii oo dalka ka joogsatay inta aan ka warqabana siyaasadii dhuxusha ee ay ahayd in lagu dhaqo arrintanna dabcan heer federaal wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xuseen Sheekh ayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay joojiyaan isticmaalka iyo dhoofinta dhuxusha. Waxaa maanta fursad weyn noo ah mudane madaxweyne inaad halkan maanta aan ugu martigelisaan iyadoo wasiiradii dowlad goboleedyada ee deegaanka ay maanta halkan ku wada dhan yihiin. sidii aan horey u sheegay, Baydhabo oo ah caasimadda ku-meel gaarka ee Koonfur Galbeed waa kulmiso sababtoo ah halkan waxaa ku kulansan wasiiradii iyo fuudii wasaaradihii dowlad goboleedka ee dalka oo dhan. Ugu dambeyn waxaa shirka furay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, isagoona dhammaan bulshada reer Koonfur Galbeed ugu baaqay inay joojiyaan jarista geedaha iyo isticmaalka dhuxusha. meel kasta oo joogno la joojiyo jarista dhirta iyo xaalufinta deegaanka aan la xaalufinin, dhirtana aan la jarin, lagu bedelo abuurista dhirta iyo ilaalinta xaalufinta lagu bedelo oo dhirtiina la ilaaliyo, xaalufintiina laga joojiyo, dhirtiina la abuuro in lagu bedelo. waxaan rabaa inaan inta uga mahadceliyo wasiirka xanaanada xoolaha iyo hay'adihii tirada badnaa uu ka soo sheekeeyey oo qaybta ka ahaa oo arrintan soo qabtay iyo wasiiradii garmantiga oo ayagana imaaday shirkan ka soo qayb galay oo ayagana shaqadan qayb ka ahaa. Shirkan ayaa gudaha magaalada Baydhabo ka socon doona muddo 2 cisho ah. Maxamed Iqsir Jito, Dalka TV, Baydhabo.